mudanayaal iyo marwooyin dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda Soomaaliyeed aan dib u walaaleyno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo kaliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wadajir ah aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu orkacsan jiray mudanayaal iyo marwooyin sida aad la socotaan waxaa la mahadiisa oo dhawaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududeysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan u dhisi lahayn aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummadoo dhan ay ku qanacsan tahay waxaa naga go'an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan waxaa naga go'an inaan raaligelinno cid kasta oo raaligelin mudan waxaa naga go'an inaan ka miro dhalinno dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qarannimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor istaagta dib u yeegleelidda qarannimada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dawladdeena ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dawlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah waxaan idin xasuusinayaa in mas'uuliyadda ilaalinta qarannimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dawladda federaalka ah waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada deriska iyo kuwa caalamka labadaba xiriir iskaashi ku qotaba ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba